waxa ay daryeelaysay oo ay gacanta ku haysay muddo 6 sanadood ah kadib markii uu shil gaari ku dhaawacmay. markii uu bogsadayna waxa uu furay xaaskiisii daryeeli jirtay isaga oo guursaday gabar kale. intaan u gudagalin sheekadan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aadna soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasanid. sheekadan oo labadii maalmood ee la soo dhaafay qabsatay baraha bulshada ayaa waxa ay ka soo ifbaxday wadanka Malaysia. lamaane u dhashay dalka Malaysia ayaa kala tagay waxaana lamaanahan ay sheekadooda ka soo bilaabatay barta la yiraahdo TikTok. haweeneyda ayaa waxa ay muddo 6 sanadood ah daryeeli jirtay ninkeeda oo shil gaari ku dhaawacmay iyada oo soo dhigi jirtay muuqaalo ku saabsan iyada oo ninkeeda u qabanaysa waxyaabaha asaaska u ah nolosha. markii uu bogsaday 6 sano kadibna waxa uu furay xaaskiisii hore ee daryeeli jirtay isaga oo guursaday gabar kale. iyaduna intaas kuma aysan harine waxay u hambalyeysay ninkeedii oo gabar kale guursaday iyaduna furay. haweeneydan oo Malaysian ah oo muddo 6 sanadood daryeeli jirtay seegeeda oo sariiryaal ahaa ayaa ku dhawaaqday in uu furay kadibna uu xaas kale guursaday. Nuural waxa ay si joogto ah u soo dhigi jirtay baraheeda bulshada nolosha dib u soo kabashada leh oo seegeeda uu helayo maalinba maalinta ka dambeysa. waxaana la arki jiray iyada oo u qubeynaysa dharka iyo xafaayada ka bedelaysa kuna quudinaysa cunto. shil gaari oo uu galay ayuu ka soo gaaray dhaawacan uu la jiifay muddada 6 sanadood ah si uu cagihiisa dib ugu istaago. waxay ku qaadatay muddo 6 sanadood ah in uu soo kabto. dad gaaraya 32,000 oo qofood ayaa ku soo xirmay barteeda waxayna soo dhigi jirtay muuqaalada seegeeda oo ay daryeelayso. waxaana ay la yaabeen in seegeeda uuna furin balse uuna kala guursaday. iyada ayaana warka arooska soo dhigtay barteeda baraha bulshada ay ku leedahay iyada oo waliba u hambalyeynaysa seegeedii hore. hambalyo seegeegiyow, nolosha cusub ee idin bilaabatay adiga iyo xaaskaaga cusub. waxaan kuu rajaynayaa in ay ku daryeeli doonto si la mid ah sidaan kuu daryeeli jiray. Nuural ayaa qoraalkan oo markii dambe ay ka saartay barteeda Facebook soo dhigtay. dad badan ayaa tallaabadan waxa ay ku qeexeen abaaldhac iyo gafa in gabadhii u soo rafaaday ee bogsiimadiisa qayb ka ahayd uu furo kadibna uu gabar kale guursado. laakiin Nuural ayaa dadka ku xiran ugu baaqday in aysan xumaan u arag seegeeda oo dhanka fiican ay ka fiiriyaan xaaladda taagan. waxay sheegtay in ay isku afgarteen seegeeda in ay isla korsadaan gabadha kaliya ee ay wada dhaleen. qoraal ay markii dambe hawada ka saartay ayay soo raacisay raaligelin ay siisay seegeedii hore iyo afadiisa cusub maadaama ay ku soo jeedisay indhaha caalamka. ilama ahan in uu gutay kaalintii looga fadhiyay wuxuuna noqday say abaal dhacay waxayna u muuqatay in uusan lahayn qalbi naxa ayuu soo qoray qof ka mid ah dadkii ka falceliyay qoraaladii ay soo dhigtay haweeneydan.